Real Madrid xalay waxay ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League ayay ku guuleysatay waxayna markaa garaacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund 2-0 ayay markaas ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaa la dhihi karaa waa kulankii ugu adkaa Real Madrid xil ciyaareedkan ay ciyaartay Dortmundna waxaa lagu tilmaami karaa kooxdii aad u dhibtay xil ciyaareedkan tartanka Champions League marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid haddaba Real Madrid waxay ku guuleysatay koobkeedii 15aad ayay markaa ku guuleysatay tartanka Champions League ma jirto koox sidaas sameysay abadan taariikhda ma dhicin Real Madrid 15 koob kooxda ku soo xigta way ku laba jibaarantay waliba midaa la dheeriyahay 7 ayay maraysaa waa AC Milan Real Madridna 14 ay ahayd waa lagu laba jibaarmay xalay 15 taariikh kale ay u socotaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid tababare Carlo Ancelotti waa macalinka ugu guulaha badan tartankan xiisaha badan UEFA Champions League hadii ay ahaan lahayd asagoo ciyaaryahan ah hadii ay ahaan lahayd asagoo tababare ah macalinkan isagoo tababare ah wuxuu ku guuleystay 5 jeer tartanka Champions League laba oo kooxda AC Milan iyo 3 Real Madrid ah marka kooxda kubadda cagta Real Madrid wax walba oo laga sameeyay tartankan xiisaha badan UEFA Champions League iyada sameynaysa 3 jeer oo xiriir iyadana bartay Zinedine Zidane 2016 17 Real Madrid haliyadeedu xalay marka laga soo tago in maxaa la yiraahdaa 15 ay markaas ku guuleysatay waxyaabo badan markaas koobka 15 ka ku dhex dugnaa waxay ahayd kulan ay Real Madrid u baahneed inay adkaato sabab la xiriira in haliyagoodii Toni Kroos in uu markaas kubadda cagta macsalaameeyo kulankiisii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Real Madrid uu markaa la qaadanay habeenkii xalay ahayd kulamada maxalliga ahaa horyaalka La Ligaha kulankiisii ugu dambeeyay uu la soo ciyaaray laakiin tartanka Champions League ayaa ahaa kulankiisii ugu dambeeyay habeenkii xalay inuu ku macsalaameeyo kooxda Real Madrid isaga oo markaas la qaaday tartanka Champions League haddaba ku guuleysiga xalay Toni Kroos ee tartanka Champions League maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in markiisii lixaad uu markaa ku guuleystay taariikhda xirfadiisa kubadda cagta tartanka xiisaha badan UEFA Champions League 5 mar wuxuu la qaaday kooxda kubadda cagta Real Madrid hal jeerna wuxuu la qaaday kooxda Bayern Munich Toni Kroos Luka Modric sidoo kale Dani Carvajal iyo waliba xidiga kale oo Real Madrid jooga uu naaji ka mid yahay من لحجر أي كوجولستان ترتن كان حساب بدن أيوة في Champions League وأنا إن كبدن أنت كوحدة كبدة عكت برشلونة أي كوجولست ترتن كان ريال مدريد لبكون أفري طبعا إلا لبكون أفري لباتن وحي كوجولستي لحجر ترتن كان حساب بدن أيوة في Champions League وأنا إن كبدن أنت مركز أي كوجولستان كوحها برشلونة سيدو كلا ليفربول هكري من بايرن ميونخ جلسي مركا إيه مانشستر سيتي مانشستر يونايتد حتى قدر marka Real Madrid marka aad fiiriso Real Madrid ka hadlideeda tartankan yaa ku fudud dil Real Madrid inaad ku guuleysto horyaalka La Ligaha ee tartanka Champions League waxay ku leedahay Champions League ay fudud aniga xalay Real Madrid 15 markay ku guuleysatay malaha waxaan isiri tartankan Real Madrid in iyada dhan laga reebo si ay u quutaan kooxaha kale ee markaasi tartankan ku dagaalama marka Real Madrid waxay noqotay xil ciyaareedkan koox iyadoo aan laga badin tartanka Champions League qaaday marka ay sidaa tahayna waxay noqonaysaa kooxdii labaad ee sidaa sameysay waxa sidaas oo kala sameysay iyadoo aan laga badin tartanka Champions League koox inay qaado isla kooxda reer Spain ee Barcelona xil ciyaareedkii 2005-2006 ayay sidaa markaa sameysay sidoo kale Real Madrid xidigeeda Vinicius Junior waxa uu noqday xidigii ugu da'da yaraa ee laba xili ama laba finaal ee tartan Champions League ee gool ka dhaliya waxa uu markaas sameeyay finaalkii Liverpool ay la ciyaareen 2022 gool ayuu dhaliyay xalina ma xal yiraahdaa gool ayuu dhaliyay finaalkii ay Borussia Dortmund la ciyaareen waxa uu rekoorkaas ka jabiyay Lionel Messi oo isagu markaas sidaan sameeyay waxa uu markaas jiray 23 sano 338 marka Messi waa laga jibiyay sidaan uu sameeyay
sidoo kale Dani Carvajal waxa uu noqday xidigii ugu da'da weynaa ee Real Madrid ee gool u dhaliya kulan final ah goolkii xalna wuxuu ka dhignaa goolkiisii labaad isaga oo maxaa la yiraahdaa ciyaaryahan Real Madrid ah oo tartanka Champions League u dhaliyo laakiin waxay ahayd gool markaasi ka fiican goolal badan marka aad fiiriso marxaladda lagu jiray ee waliba in kulankan uu ahaa kulan markaas final ah ay u baahneed Real Madrid xilli ay u baahneed in laga celiyo Borussia Dortmund kulankan oo kale koobkan oo kale taageerayaashaas oo kale in laga farxiyo waxa uu dhaliyay goolkii madaxa oo aad ku quruxda badnaa haddii goolkaas ay dhalin lahayd Real Madrid xogaa culeys badan ay jiri lahaa Vinicius Junior waa uu soo gagabay sidoo kale ciyaaryahanka reer Turkey ee Arda Güler isaga waxa uu noqday xidigii ugu horeeyay taariikhdu sameeyay xalay taariikhdu sameeyay taariikh buu galay waxa uu noqday xidigii ugu horeeyay ee markaasi Real Madrid ama tartanka Champions League isagoo Turki ah xidigii ugu horeeyay Turkiga ay ku guuleysay tartanka Champions League ayuu noqday marka Real Madrid marka aad fiiriso waxaad mudaaba tartanka Champions League boqorada Yurub bilaash looma dhihin hadda waxa lagu leeyahay waxa soo socda Kylian Mbappe iyo xidiga kala soo socdaan kii lixaad ma ku guuleysanaysiin Allah maxaa la yiraahdaa kii 16aad ma ku guuleysanaysiin kii 16aad iska dhaafay 17 18 sanadaha soo aadan haddii la dhoo Real Madrid yaa la tartami karaa hadii wax kale isbedelin waxaa la dhihi karaa Manchester City oo haddaba soo yeereysay in Pep Guardiola uu ka tagay ayaa leeyahay nasiibka meeshiisu ku jira laakiin Real Madrid hadda la is xoojinaysaaba oo xidiga da'yar iyo maxaa la yiraahdaa Kylian Mbappe iyo rag kale ay soo socdaan marka hambali Real Madrid hambali fans Real Madrid koobkii 15aad waa adag tahay waa record ay adag tahay in markaas la soo gaaro kooxda ku soo xigta waa AC Milan 7 jeer ayuu ku guuleystay 16 jeer loo sii socdaa 15 xal ay ku guuleystay marka Real Madrid habeen wacan ay qaateen xalay inkastoo Borussia Dortmund ay dadaashay waxa la dhihi karaa habeen kooxdii mudnaan inay ku guuleysato aysan maxaa la yiraahdaa guuleysan kooxdii la dhibayna ay guuleysatay qaybtii labaad marka waxa lagu garaacay Borussia Dortmund bedelkii ay markaasi ay sameeyeen macallin Carlo Ancelotti waxa lagu yaqaanaa bedelku ma degdego bedelka macallinka uu sameeyay intuu fiiriyo ayuu markaasi bedelkii lagu dil lahaa ayuu keenaya marka Real Madrid waxa ay markaasi xalay ay ku guuleysay koobkeedii 15aad waliba Real inay koobkan ku guuleysanayso waxa ay ugu cadcadeed marka ay ka soo qaadatay Manchester City markay ka soo qaadatay Bayern Munich oo Borussia Dortmund final ay u joogtay laakiin marka aad fiiriso in koobkeedii 15aad Real Madrid ay ku guuleysato waxa markaas la isdhahay xogaa taariikhiisa dhici karto sida Borussia Dortmund ay Juventus ku sameysay xil ciyaareedkii 1995 96 ay ku sameysay ayaa la filayay xal oo kale laakiin ma aysan dhicin Borussia Dortmund 3 jeer ay final tagtay hal mar way qaaday hal mar waa laba marna waa laga qaaday marka Borussia way dadaaleen meel wacan way soo gaareen xalay wiilal aad u fiicnaa ay ahaayeen ma la isdhehinin kubadaas oo kale iyo sidaas oo kale Real Madrid u dhibayaan laakiin xalay banooni fiican ay sameeyeen nasiibka laakiin waa uu keenay Real Madrid koobkan asaa dhahay iqaad igu guuleyso Real koobkan asaa dhahay iqaad igu guuleyso wax kale laga qaban karo ma leh hambal Real Madrid